رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان بشوين سوماليد مربع جوكتان وحن ليا مالي ونكسن maanta waa maalin sabti ah ee taariikhda ay ku beegan tahay 27 bisha toddobaad waxaan u fadhinaa maanta qayb kamid ah ganacsigeena ama qayb loo yaqaano compensation planka qodobkiisii toddobaad oo ah abaalmarinta ama special awardska ina abaalmarin gaari aan siino marxatin aan ka noqono dadaalka iyo juhdiga ay sameysay qof run aantii howlkar ah dadaal badan sameysay 6 bil ugu horeysay shirkadana gaari ka ajiif gareysay gaarigaas oo ah qiimihiisa $5,000 oo Kenya markii laga dhigo ayaa maanta waxaan ku wareejinaynaa dadaalkii ay sameysay iyo juhdiga ay bixisay abaalmarinta gaariga ay ku qaadatay qof xaqiiqatan mudan abaalmarintan gaariga inay qaadato waxaan leeyahay Mrs. Halimo Hussein Jamac achievementiga aan sameysay maanta gaariga ayaan kugu wareejinaa insha Allah anagoo wada joogno oo dhamaanteen ah gaariga qiimihiisa markii la qiimeeyo waa $570,000 waxaan leenahay congratulations ambalyo tan waa sarifka markii la sameeyo $70,000 laakiin qiimo ahaan waxa waa 100 waa 200,000 waa 300 waa 400 waa 500 iyo 70,000 jajabka ahaa waxaan leenahay ama Halimo ambalyo soo dhow runtii de maalmaha kamid un baa anigana company-ga lagu soo casuumay oo wax lagu yiri wax waa laga qaadan karaa waana ka noqon kartaa waxay dadka noqdaan anoo hooyo Soomaaliyeed aan wax qorin aan wax akhrin waxa lagu yiri company-ga taanis wax waad ka noqon kartaa lacagna waad ka qaadan kartaa rugti qiyaali baa u maleyn jiray laakiin wata way horta taala wad arkaysiin baan u maleynayaa waan soo wada dhaweynaya dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba joogtaanbo maanta waxaan achieve gareynayaa de star man soo galay gaarigaygii $5,000 waxa ma ahan intaas in ka sii badanna waan sii rajaynayaa still hankayga ma sii dhicin bishan lixaad oo hadda aan ku jirno 12aad waxaan rajaynayaa gaarigaygii labaad inaan achieve gareyn doono insha Allah taala aad baan u salaamayaa waxa mahad u sugnaatay Allah subhanahu wa taala kadib ableenadeeda qaaliga igu soo barbaariyay yiri waxaan waad mari karnaa waad qaban kartaa waad yeeli kartaa ay wadada iyaga mareen iyo qaabkii ay hageen intaan u hagmay aan aniguna ku soo gaaray meeshan idinkuna waad qaban kartaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba joogtaan